بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقو ويحيى محمد حسين. waxaan ka mid ahay ardayda wax ka baratay TICSI Technology oo ah platform waxbarasho oo casri ah. platformkan waxbarasho waxaan ka bartay xirfadda loo yaqaano graphic design-ka gaar ahaan Adobe Photoshop, Adobe Illustrator iyo Adobe InDesign. anigoo ku bartay qaab bootcamp ah loona soo diyaariyay qaab ku salaysan real life projects-ka suuqa shaqada ka jira. waxa aan ku bartay qaab offline ah waxaana ka mid ahaa ardayda ugu horeeyay ee lagu bilowbo qaabka offline-ka. TICSI Technology waa platform waxbarasho oo uu ardaygu kaga baran karo qaab online ah goor kasta iyo goob kasta uu joogo. sidoo kale waxa uu kaga baran karaa qaab offline ah gaar ahaan dadka Hargeysa jooga. waxa aan dhameeyay xirfadan graphic design-ka 2021 muddadii aanu dhiganaynay amba aanu ku jirnay tababarkan graphic design-ka ah. waxa TICSI Technology platformka waxbarasho uu awoodda saarayay inuu ardayga ka dhiso projects-ka sida borderka, ID cardska, business cardska, card bannerska iyo magazines-ka iyo design kasta oo looga baahan yahay suuqa shaqada inuu ardaygu keeni karo creativity iyo hal abuur ama naqshad cusub. hadda shaqooyinka aan ka shaqeeyo graphic design-ku waa qayb ka mid ah. runtii waxa aan jecelahay inaan fariin u diro cid kasta oo jecel inay noqoto graphic designer ama nashqadeeyayaal hal abuur leh in ay ka faa'iideystaan booqdaan website-ka tixsi.com oo uu ardaygu ka heli karo koorsooyin ama bootcamp-yo loo diyaariyay qaab heer sare ah. waxa igu kalifay in aan xirfadan barto graphic design-ka ah amba aan noqdo nashqadeeye markii aan arkay baahida suuqa shaqada ka jirta in loo baahan yahay qof graphic designer ah oo leh hal abuur amba creativity.